aan ku bilaabay dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay natiijada Baritaankii Qaraxii xarunta dowladda hoose ee Xamar isla markaana uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaan duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow. dowladda Soomaaliya ayaa bixisay xogtii ugu horeysay ee ku saabsanayd qaraxii 24kii bishii hore ka dhacay aqalka dowladda hoose kaas oo ay ku nafwaayeen dad ka badan 10 ruux oo ay markaas uu ku jiro duqii hore ee Muqdisho. qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo Muqdisho ayaa waxa ay dowladdu ku sheegtay in ay shacabka Soomaaliyeed u soo bandhigayaan natiijada hordhaca ah qaraxii iyo sidoo kale baaritaankii lagu sameeyay qaraxii xarunta dowladda hoose ee Xamar. war-saxaafadeedka wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu qornaa sida tan: wasaaradda amniga gudaha oo tixraacaysa warbixin baariseed hordhaca oo ay sameeyeen hay-adaha amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kuna saabsanayd qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar 24kii bishii 7 2019 waxay wasaaradda amnigu la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed sida soo socota. ugu horeyn dowladda Soomaaliyeed waxay tacsi u direysaa intii ku dhimatay sidoo kale caafimaad degdeg ah waxay u rajeynaysaa intii ku dhaawacantay falkii foosha xumaa ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. 2 dowladda Soomaaliya waxay cadeynaysaa in falkaas uu ahaa dhibaato weyn oo loo geystay shacabweynaha Soomaaliyeed. 3 baaritaan hordhaca oo ay sameeyeen hay-adaha amniga ayaa lagu ogaaday in ay isqarxisay ruux nafteeda haligso ah oo waliba dumara kana shaqeynaysay xarunta dowladda hoose ee Xamar iyada oo kaalmo ka helaysay ruux kale oo dumar ah oo ku qorneyd oo markaas iyana ka ahayd ama kamid ahayd shaqaalaha dowladda hoose ee Xamar. 3 labada gabdhood oo ah baaritaanada kuwa ay ku socdaan oo mid kamid ah isqarxisay mid kalena lagu daba jiro ayaa waxa la sheegay in la shaqaaleysiiyay isla markaana la shaqaaleysiiyay xarunta dowladda hoose ee Xamar. sida lagu ogaaday baaritaanka labada gabdhood ayaa fasax isku dhow ah waxa ay bil gudahood ka qaateen xarunta iyaga oo xogta qaar aan helnay ay sheegayaan in ku dhawaad 2 bilood gudahood ay aadeen goobaha maamulaan al-shabaab halkaasna tababar ay ku soo qaateen. ugu dambeyntii qodobkan waxa lagu soo gabagabeeyay nafteed haligtadii isqarxisay waxa ay ka tirsanayd al-shabaab waxaana socda shakhsiyaad ka shaqeynayay xarunta dowladda hoose oo baaritaan ay ku socdaan. ugu dambeyn waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa mar labaad in falkaasi argagixiso ee ka dhacay xarunta dowladda hoose lagu soo qabqabtay dad aad u badan kuwaas oo kor u dhaafaya dhowr iyo 10 ruux kuwaas oo hadda baaritaan ay ku socdaan isla markaana la horgeyn doono maalmaha soo aadan hay-adaha garsoorka ku shaqada leh. qoraalkan ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dhawaan dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi dowladda hoose ee Xamar uu geeriyooday Allah u raxmaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir marxuum injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. isla magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee Konis waxaa la filayaa in maanta ay ka dhacdo baroordiiq iyo duco loo sameynayo injineer Yariisow Allah u raxmaday. waxaana warkan helen ay sheegayaan in magaca garoonka oo loo yaqaanay Konis laga bedeli doono isla markaana loogu magac dari doono injineer Yariisow oo ahaa duqii hore ee Muqdisho. madax ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa la filayaa in ay ka qayb galaan ducadaasi.